السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan dadka ku taxan channelkayga wadajir media soo dhawaada channelka subscribe noo saar. wararka aan idin hayno saaka waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Iran iyo Turkiga oo wadahadal dhanka qadka telefoonka ku yeeshay ayagoo ugu hanjabay ugu goondiyay Israel inay joojiso dagaalada ay ku wado marinka Gaza. madaxweynayaasha Iran Ibrahim Raisi iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa warkoodii yimid kadib duqeymadii joogtada ahaa Israel ay waday ay diiday inay joojiso. shalayna waxaa jiray xabad joojin ay ku baaqday dowladda Masar. xabad joojintaasna waxay ka dhaqan gali weysay dowladda Israel ayada ayaa jebisay. dagaaladii wali way sii socdaan. dhanka kooxda Xamaasna waxay iska wadaa iska caabintii sidii maasha Allah mar walba horumar bay ka sameynayaan. olole cusub iyo meel cusub bay qabsanayaan. marka warkan goondiga Iran wuxuu cabsi gelinayaa Israel oo isdhiisay Iran ma soo galayso. marka cabsi weyn baa jirto inay Iran dagaalka toos ay usoo gasho ay kusoo beerto ciidamadeeda sandaraad. wararkan ku leeyahay inay yimaadeen dhanka Iraq ayna rabaan inay usoo dhawaadaan usoo tilaabaan dhanka Falastiin. marka xaaladda weli waa cakiran tahay, weli dagaaladii way socdaan. Israel ayadana goondigii bay wadaa dagaal dhulkan qaadina bay leeyihiin, laakiin awooddaas ma laha. cabsi baaxad leh ayaa hayso. marka ma awoodi karaan dagaal dhulkaas ay kusoo qaadaan. 7 Oktoobar wixii dhacay ay ogyihiin ay geysteen mujaahidiinta Xamaas, kaasoo ahaa dagaal lala yaabay oo Israa'iiliinta si xun loogu baabi'iyay oo wadankoodii gudahood in loogu galay. Israa'iiliin badan la dilay, qaar badan la soo qafaashtay, saraakiil sarsare xitaa ay ku jiraan oo caalamka oo dhan uu la yaaban yahay. dhacdadan oo kale mardhow aysan dhicin. dagaaladii hore oo dhex mari jiray Israel iyo Falastiin oo kale ayaa lala mid dhigay midan oo kale. marka sababaas ayaa keenaysa Israel inay ka baaqsato inay dagaal degdeg ay qaado. dhowr saraakiil ilaa 3 sarkaal oo dagaaladii hogaamin lahaa madaafiic ay soo tuureen Xamaas ayay ku geeriyoodeen. taasina marka ducada muslimiinta ay u duceynayaan waa dalka Falastiin. marka subscribe noo saar channelkeena.